waxaa dareema asxaabay inaa culays garbaha labada garbood culays iga saaran yahay. inaa lillaah wa inaa ilaahi raajicuun. walaashay hodo online ay ahayd taasi oo xaajigeed uu ku geeriyooday magaalada London isbuucii lasoo dhaafay. gabadhu waxay noo sheegtay inay xanuunsaneyd isla markaana culays fara badan ay dareemaysay. waxaa kaloo noo sheegtay inaysan soo gelin YouTube aysan soo sameyn barnaamijyo dad badan ay ku xiraayeen. waxaanay sheegtay in ay dareemaysay culays saaran. waxay noo sheegtay inay quraan is saartay ilaahayna uu ku caafiyay alxamdulilah, balse waxaa soo food saartay geero xanuun badan taasoo galaafatay saygeedii xaajigeedii qaaliga ahaay oo ay looda u dhashay kuna geeriyooday magaalada London. walaashay waxaan ku leeyahay samir iyo imaan fara badan Allah kaa siiyo. dhammaan youtuberaduna waa ku tacsiyeen, anigana insha Allah waa ku tacsiyey. insha Allah telefoonkan haddii alla yiraahdo waan soo markaasi ku soo geli doonaa haddii ilaah awood loo ogolaado oo nasiibku noo saamaxo. waa dareemi karnaa xanuunka geerida intay la eg tahay. waxaan leenahay waa ku duceyneynaa in qalbigaada ilaahay ku qaboojiyo. dhanka kale waxay ka hadashay arrimo dhowr ah aanu daawano. special markaan dhaho YouTube aan duuba oo niyeysto oon qisadii diyaarsan kaamirada soo dhigto waxaa dareemaa caajis, waxaa dareemaa hurdo meelay ka timid aanan ogeyn, ma hadli kari. laba kelmad haddaan isdaba dhigo waa haamaansanaya. anidhan madluuna ahay, wax ma qabsan kari. caafimaad dhuuxa iyo dhamarka galaba allaha ku siiyo. waxaa haya kulley waxay noo sheegtay inay quraan is saartay isla markaana hadda ay fiican tahay oo ay dareemayso rayn ku socodan. so alxamdulilah hadda waa fiicanahay ilaahay mahadiisa, ilaahay dikrigiisu ilaahay igu roonay. alxamdulilah ilaahay dhankiisa u orday. alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waa fiicanahay, active ahay, fahman dareemay. laakiin sababaha keenaya waxaasi ma ogi. quraan saar ayaa samaystay. alxamdulilah rabbilcaalamiin allah yaqbalo. waa ku fiicnaaday been ma sheega 100% waa fiicanahay alxamdulilah. hadda dhanka kale holadan oo la weydiiyey su-aal ahayd maxaa kuugu yaabka badnaa, waxa ay tiri waxaan la yaabay qof muslina amaba Soomaaliya ama gabar kula mid oo Soomaaliyeed oo adan waxba u dhiban ku caynaysa. waxay sheegtay in baraha bulshada qaybo kamid lagu aflagaadeynayay, waana tan hodan oo ka hadlaysa. walaahi hadda labadan wiiga la soo dhaafay wax iiga la yaab badnaa ma jirin oo inaan arko dad without any reason qof ataagareynayo, qof naceeb tusaayo. dumarna ay u badan yihiin, yani dumarka Soomaaliyeed I don't know sababta ay ku dhacday. awal waxyaabo iiga la yaab badnaa waa jiray, laakiin hadda aan ka hadlayo momentkan videogan duubayo wax iiga la yaab badan ma jirto inaan arko comments aniga layga bixinayo oo dumar 99% ay dumar yihiin oo intuba ay yihiin wax naceeb oo يعني like waxaan dareemayba inaan dadka gabdhahaas aan qof ka dilay, hooyadood dilay, aabahood dilay, walaaladooda aan dilay. يعني waxa badanaa dumarkaas ay igu tilmaamayeen ee tahay isla weyni. marar badanna waan ka sheegay Snapchat-kayga maadaama Snapchat-ka u badnahay. isla weyni ilaahay bay u sugnaatay oo ilaahay baaba aayadiisa ku soo gudbiyay oo kitaabkeena quraanka wala tamshi fil ardi marahan fa innaka lan tughriqa al arda walan tablugha al jibala tula. tahay gabdhaha Soomaaliyeed gormeyka waan toobayaan inay wax u dhimaan amaba ay caayaan qof aysan garanaynin ayagana waxba u dhimin. waxaan filayaa inay gabdhaha kala xishoodaan amaba ay kala xishoon doonaan. intaana waxaan tacsi ugu soo gabagabeynayay ama baan ugu soo gudbinay walaashayda online oo xaajigeeda oo geeriyooday. dhanka kalena waxaan rabaa inaan u digo dadka xumeynaya qof asugu xanuunsan amaba cay iyo waxaan geynin ugu sii daraya amaba dhib asiga haysta dhib kale ugu soo daraya. waa masantii Jamila Garoon barnaamijyadeeda ayaad la socotiin. tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tagayaa insha Allah isoo noqod wanaagsan. subscribe-ka share-kana waa dhankiina. aad baa u mahadsantiin. assalaamu calaykum.